macallimiintu ma qabaan ardayga hadii dulmiyaan tusaale ahaan in ay raali gelin karaan macallinka wanaagsan oo sharciga iyo bartay muxuu ahaay nidaamka macallimada bartay ardayga haduu ka gardaran yahay macallin gardaraya inuu raali geliyo waajib sharci dhigan waa iskuulka sharci ma ka dhigi karaa laakiin waa lagu tatbiiq waa lagu kala duwan yahay istuulaadku ma dhihi karaan markasta amarka macalinka raaligelinta ka sokow haddii ardaygii dhibaato lagu sameeyay uu arday halka soo istaago wuxuu macalinkii waa inabe waxaan ani ma sameyn ha iga raaligeliyo hadduu dhaho tusaalaha oo macalinka dhaho ma raaligeliyo caqabada ka dhalan karta ardaygaas horta sida badan marka la fiiriyo inta badan ma dhacdo in macallin uu arday raaligeliyo even haday timaadana macalinka sharciga yaqaan uu raaligelinaya okay sababtoo ah ardaygan wuxuu leeyahay xuquuq asaasi oo aan laga gudbi karin sax xuquuqdiisa in lagu tatana maaligiisa ma jirto tusaalaan waxyaabaha ugu daran hadda ardayda isku dhacaan iyo macallimiinta waxa ugu horeeyo ama ugu muhiimsan imtixaanka oo kale ardayda imtixaanada marka la qaado oo kale marka warqadiisa la siiyo oo kale dabcan qofkan macallinka de 100 warqad oo laga inuu saxa waxba ka khaldami karo aad iyo su'aal waxa laga yaabaa ardaygaas u saxan oo ninkan ka qaldan macallinkan ardaygan kala ka qaldan inay dhacdo way u dhici karto ardaygu dhacdo macallin saan wax jiraan naga tag indhaha ama ardayga la handada meesha kuma jirto ardayga xaq wuxuu leeyahay in laga qanciyo hadduu qaldane de qalad uu leeyahay hadduu saxayna de in la siiyo wax meesha ku jiro way oo mar walba ardayga in la qanciyo meesha ku jirto oo dhiimayna de ardayga waa ka awood badanahay ma soconayso okay laakiin sida saxda ah ardayga xaq u leeyahay in macalinka haduu ka diray ardayga doodi kara oo dacwo furan kara oo kiiskaas furi kara waa sharci muxuu ahaa lagu taageero qof gudub iskoolaadka waxaa jirta ustaad Amiiro aad iyo aad macalinka iyo ardaydiisu inuu gur dhex maro yes sida u arta horta adiga wallahi macalinka iyo gabadhiisu inuu guursado dabcan ama gabadhu macalinkeeda ay guursato waa isku mid ah ana waxaan arkaa wax fiican reasonka ama sababta waxa weeyaan reasonka ama sababta waxa weeye dabcan gabar kasta oo wanaagsan oo fiican oo akhlaaqiyadka diiniga leh hadii macalinkeedu uu san guursanin ama macallin wanaagsan ka laasana uu san guursanin ko kale saaqada doorka ka helay waan u habooneen laayiq ama muhiim aan u ahayn marka intuu mid ka xun doorka ka heli lahaa anaga og tijaabina aqoonteeda marka hayna maqto iyo waxa akhlaaqada marka hayna marka inaan guursanada wax cilado keenaa ma jirto aba yaa heli karaba waxbana laakiin waxa dhacdo tusaalahan gabdhaha marka goobaha waxbarashada ee macallimiinta guursadaan way ka tagaan iskuulka si fiican waa guriga macalinka fadhiisiya gabadha si fiican aad iyo taas ka waran ayada meesha wanaagii ka socday garaadka macalinka ama maskaxda ama asaas u shaqeeyo horta ku xiran tahay laakiin arday wax dhiganayay oo aad guursatay oo aad ama muxuu ahaay adii sabab u noqotay inaad waxbarasho ka reebto aan runtii ma qabo guurso galaasna ha dhigato wax diidaayo waxba yiraahdo ma jirto boqolaal macallin waan arkay oo in saakay guriga la soo kacay quraacda soo cuna soo kala haan soo jarmada soo xisad siimaanto sida ardayda ula tacaamulo markii guriga tagana de waa barwadiis suurgal ma tahay macalinkaas inuu ihsaan ولوده والله يد بين آدم هرت دي ويدعك تها ما يمديه كان صوته هذا حاسك قام أريد هذا ما ده مرة بإذا هرت كعدة بس ما يستاس إذا قاعدك لكن عندنا عدالة ماشي وكل جتاه إنه معلم كوس عدالة فلا وح ماشي كل جروي لكن ده كقار وسمك هذا ما يمديه إنه ودعك تتص معناها أرضي دي مرة كقاركوت بريا جلاس كنا معلم كنا أو حق جوار جلاس إسرائيل مركز صدى هذا جلاس كسوق ريتشارد سفيان عقاب ما جرت سفيان إن واحد استواك هذا حجاب كعب قمر عضها لو حرنجل هذا وصص رجينا سفيان سكولات هذه قمر كان مصر كأو حجاب كأكسر تكتو كلر كرسو حرته ملع عقاب جرب ما ممكن سمعلم أنت معلك هي ما شو وش معمول واحد ما هم نيجر طبعا كان احترامي مركز ها معلك لو احترامي waxa macquul ardaydii aniga ah kamid ahaa in banaanka loo saar qoliyaha masarka way ka soo tagtay ha masarka ay ka soo tagteen oo ama arday kale anaga hadaan ku jirin arday galaas kale inay banaanka u taagan yihiin lagu xanibay maxaa masarka oo soo tagtay taasoo ahna waa cadaalad darro macaan sax waa laakiin macallinka ku dhicaysa maamulka ku dhicaysa maamulka dii gabadhaas macallinka uu guursaday asaga hadan ninkaas saa qabanaagtaas oo shaqo mulyan oo asaga la tacaamulo
وحي activities أصلا ربع صح لكن شرعي يسكن كل دقن دورة لقبة كريبة معه إن لمرسي وحواجب واحد إن أستاذ أميرو حكمتها إن معلمين الصومالية سفيان خاصة معلم مركز السوشيال ميديا إماضو برشدة أساسا تفكر قطع ما كل تلنسا أرديتي الصومالية لما أنت السوشيال ميديا هذيك السنة خاصة تيك توك دي السوشيال ميديا بدن كدتك وما وضع بريران واحد ترى ذي واحد تاعي أرتضاف دي ماي ما نضاف كران أها لكن كل بدافع ميسانة ماشي وناسا كيستمع له إن شاء الله وحقوق وناكسن وحالي هذا لسكما ترابع وحلقة تجا هذا أنتي تاجن تهدوني وتردد وينه ورأدون كان أنت جوكت ومعلومك هبا عاديات دو عماش عسمين السنة بريبة كهرية أمان اسمه وحيجيب waxaan kula talinayaa marka ardadayda iyo gabdhahayga iyo wiilashayda dhamaan inta social media dhanka xun u isticmaasho adduunyada waa maalmo ay koobane ka soo laabto wali toobad way furanta aan ka faa'iideysto waxna ka barto meesha wanaagsan mar walba ka isticmaalo عاديات أنت سنو إيكين سؤالها أنا أستاذ أمير عادي وكفرح سنها إن أنا صوبوقته جزاك الله خير كافي شو يا أصحابته كحرم مر بدن وان من ضمن إن شاء الله قدهان برنامج كنا قد درك وايها ومانتا ومرتين وها أستاذ عبد الفتاح إبراهيم أمير وأد كنت قانان معاني كني تيك توكر كأها فرق رحنتا إيه إذن برجل الصحيحة أنت قدهان برنامج كنا أنت سأيوك سوق الجو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.